رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii siirada ee rawdatul anwaar, khaasatan waxaan ku sii dhex jirnay oo noogu soo dambaysay qaswadii ama duulaankii ee fatxu maka. gebagabadii waxaanu maraynay dad fara badan oo rasuulka dhiigooda uu hadri ka dhigay. intaa wixii ka dambeeyey waxshi bni xarb, hindi binti cudba oo naagtii abi sufyaan ahayd, iyo 7 qofood. waxaa isqarinayey sidoo kale naftooda qarinayoo dhuumanayay dad aan sidaa ahayn, dhiigoodana aan hadri markaa laga dhigin. safwaan ibnu ubaya ka mid ah, zuhayr ibnu abi umaya, suhayl ibni camar, qofkii xasuusta waa sulxudaybiya markii la kala qoranayay ninkii warqadda wakiil uga ahaa quraysh, wiilkiisiina markaa yimid suhayl ibnu camar. intaa ka bacdi way islaameen dhammaantood. ilaahay baa mahad iska lehe. salaatulfatxi waxaan qaadanaynaa darsiga lagu magacaabo salaadii guusha. shukri ahaan buu rasuulku u sameeyey sala allahu calayhi wasalam. waa salaadii fatxiga. wadakhala wuu galay rasuuluullaahi, rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam, duxa wakhti barqan ah ayuu galay fii beyti ummihaani, gabadha ummihaani la yidhaahda gurigeeda, gabadhaasoo binti abi aalib gabadhiisa ahayd. wa cali bni abi aalib walaashii radia allaahu canhuma, labadoodaba allah ka raadi noqdee. faاkhtasala wuu qubaystay, wasallaa wuu tukaday nebiga 8 rakacaatin 8 rakacadood. 8 rakacadood ayuu markaa rasuulku tukaday. salaata alfatxi ayuu markaa tukaday. meeshaasaa wax yaroo khilaafa markaa ka taagan yahayo, rasuulku markuu furtay baa xilligaa ku beegnayd. salaaddaa uu tukaday maxay ahayd marka? salaad duxaa ayay ahayd bay qolo tilmaamaan, qolana waxay ahayd salaad fatxi ah oo ilaahay uu ugu shukrinayey rasuulka guushaa uu siiyey. yusallimu wuu salaamo noqsanayay nebiga fii kulli rakcatayni, 2 rakacadood kasta waa ku salaamo noqsanayey. 8 rakacadood sidee buu u tukaday? 2 tukaday wuu salaamo noqsaday, 2 kaluu tukaday wuu salaamo noqsaday. yusallimu fii kulli rakcatayni. wa kaanat ummihaani waxay ahayd qad ajaarad mid nabadgelisay xamwayni, 2 dumaashi oo lahaa ayadu ay lahayd. 2 dumaashiyoo ayadu markaa u sugnaa oo dhanka ninkeeda ka socday ayay markaa nabadgelisay. wa araada calina ibna abi aalib wuxuu doonay radia allaahu canhu an yaqtulahumaa inuu dilo. ileen fatxu maka markay dhacday, dad fara badan oo dakano horay u galay, dad fara badan oo dembi horay u galay, saan hadda soo tilmaannay, qaar dil lagu xukumay isugu jireen. intaa wixii ka dambaysay dad baa dad badbaadinayay. marka ummihaani waxay nabadgelisay oo ay badbaadisay, ijaaradeedii jawaarimadeedii soo gelisay 2 nin oo dumaashiyaalkeed ahaa. cali baa seef la hortaagan oo leh, iga leexda qoorta aan ka gooye. gabadhiina intay qabatay bay guri ku xirtay. fasa'alat rasuula allahi bay su'aashay sala allahu calayhi wasalam. fasa'alt way weydiisay rasuulkii allah. faqaala wuxuu yidhi nebiga, qad ajarnaa, waan badbaadinay oo waan nabadgelinay. man ajarti yaa ummahaani, ummuhaaniyey cidda aad badbaadisay annaguna waa badbaadinay.
islaamka sharaftiisii is-ixtiraamkaa meesha laga qaadana. qof dumar ah ayaa waxay badbaadisay 2 nin. calina wuxuu rabaa inuu dilo. sidaa darteed bay tii rasuulkii ilaahayow 2daa qofood ayaan nabadgeliyey, 2daa qofood ayaan dhahay lama taaban karo. calina wuxuu leeyahayna adeerkaa waa dilayaa oo qoortan ka goynaya. haddawaasaana gurigan ku soo xireen, maxaan sameeyaa? faqaala qad ajarnaa, waan nabadgelinay. man ajarti yaa ummahaani? ummuhaanii qofkii aad badbaadisay annaguna waan nabadgelinay. calina ma taaban karo. bilaalun, bilaal ayaan gelaynaa oo yu'adinu aadaamaya calaa dahri alkacbati, kacbada dhabarkeeda. allaahu akbar. shalay baa la tumaysaan soo tilmaannay. kitaabka awalkiisa qofkii xasuusta ayaan ku soo marnay dhagax shiid ah oo weyn in laga saaro laabta, in la garaaco, in la tumo. maantana kacbada dhabarkeeda iyo dusheeda intuu koray yuu kelimooyinka tawxiidka ku dhawaaqayaa. bilaalu yu'adinu waa aadaamayaa calaa dahri alkacbati, kacbada dhabarkeeda. waxaa galay oo la gaaray waqtu salaati aduhr, wakhtigii salaadii duhureed. fa amara wuu amray rasuuluullaahi, rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam, bilaalan, bilaal ayuu amray inuu aadaamo. faadana calaa dahri alkacbati, kacbada dhabarkeeda ayuuna ka aadaamay bilaal radia allaahu canhu. inuu kacbada dusheeda uu kor u fuulay ayuu kelimooyinkii aadaanka ku dhawaaqay. wa kaana daalika, arrintaana waxay ahaatay bimathaabati iclaan booskiisa ayuu ahaaday can duhuuri alislaami, islaamkiinuu daahir noqday. ninkay shalay garaacayeen oo ay tumaayeen, afkiisana laga waayo waxaan waaxid iyo axad ahayn, ayaa maanta korkooda ka qaylinaya islaamku inuu noqday mid duhuur ahoo guulaystoo kor noqday. wa kaana daalika, arrintaasi bimathaabatin ama bimansilati iclaan booskiisii waaye can duhuuri alislaami, islaamku inuu guulaystay uu kor noqday. waqad raaca waxaa ku farxay daalika arrintaa, waa bilaal inuu kacbada korkeeda koro ee uu ku aadaamo. almuslimiina, muslimiintii ayaa aad ugu faraxday. biqadri maa agaada, in la eg intay ka caroodeen almushrikiina, dadkii mushrikiinta ahaa. addoon madoobaa maanta kor noo fulay bay dhaheen. markaasuu kelimad tawxiidka nagu kor qaadaya. biqadri maa agaada, in la eg intay ka caroodeen ama ka caraysiisay almushrikiina, mushrikiinta. walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, mahadna ilaahay baa iskale caalamka rabbigood ahaa. waxaa la gaaray oo dhalatay waqtu salaati aduhr, wakhtigii salaadii duhureed. fa amara rasuuluullaahi, rasuulkii allah ayaa amray bilaalan inuu aadaamo. faadana, bilaalna wuu aadaamay calaa dahri alkacbati, kacbada korkeeda. wa kaana daalika, arrintaana bimansilati iclaan booskiisuu ahaa, ogeysiin ama bimathaabati boos iclaaneed buu ahaa can duhuuri alislaami, islaamka kor noqoshadiisa. waqad raaca, waxaa aad ugu farxay daalika arrintaa almuslimiina, muslimiinta. biqadari maa agaada, in la eg intii ay ka caroodeen almushrikiina. walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiina, mahad oo dhanna ilaahay bay u sugnaatay caalamka rabbigood ahaa. iqaamatu rasuulillaahi, rasuulkii ilaahay ku nagaashihiisa sala allahu calayh wasalam bimakkata, maka uu ku nagaaday. walamaa, markii tamma uu taam noqday uu dhammaystirmay fatxu makka, maka furashadeedii ay taam noqotay. takhawafa waxaa cabsaday alansaaru, nimankii reer ansaareed ah way baqeen. nimankii reer ansaareed ah ayaa markaa cabsaday. mar allaala markii fatxu maka ay dhacday, guushii ilaahay siiyey ansaar waxay ka cabsadeen an yuqiima, inuu ku nagaado biha maka rasuuluullaahi sala allahu calayh wasalam. bacdamaa guul uu helay, cadowgiisii ilaahay jebiyey, nimankii ka soo cayriyeyna ilaahay makaniyo gacantiisii maanta ay soo galeen, inuu isdhaho bis meel kale ha aadin. li'annahaa, maxaa yeelay maka baladuhu, waa beledkiisii.
wa baladu cashiiratihi tolkiisa beledkoodii waaye iyo wa qowmihi dadkiisiiba. marka ansaar aad bay u murugooto waxay ka cabsadeen amuu nebiguni raaci waayaa ood keligiin noqotaan, kadibna uu mako iska joogaa bacdamaa uu guul helay. wadaalika arrintaana xiina wakhti bay ahayd kaana uu ahaa rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam cala asafaa buurta safa. cabsidaa waxay gashay markuu nebigu buurta safa saarnaa, raafican xaal uu kor u qaaday yadayhi gacmihiisa, yadacow asagoo ilaahay tuugaya subxaana wa tacaala. falammaa markii faraqa uu ka faaruqay uu dhammeeyey min adducaa'i tuugmadii, qaala lahum wuxuu ku yidhi macaada allaahi ilaahayaan ka magan galay inaan idinka tago oo sidii la ogaa ii soo dhoweeyey oo dhiiggoodii io naftoodii io maalkoodii ii huray inaan idinka haraa. macaada allah ilaahay ayaan ka magan galay. almaxyaa maxyaakum noloshu waa noloshiina, meesha aan ku noolaanayo waa meeshaad ku nooshihiin. waalmamaatu geeriduna mamaatukum waa geeridiina, meel allaala meeshaad ku dhimanaysaan anna ku dhimanayaa. saasuu markaa rasuulku yidhi. waa uga dhabeeyey, waa ka laabtay ilaa 19 maalmood baa suuragala inuu joogay. kadibna nebiga waa noqday, madiinuu ku dhintay, madiinana markaa lagu aasay. macaada allaahi ilaahay baan ka magan galay arrintaa. almaxyaa noloshayday meeshaan ku noolaanaya, maxyaakum waa meeshaad idinku ku nooshihiin. waalmamaatu geeridaydii meeshaan ku dhimanayana mamaatukum waa geeridiina. faatma'anna alansaar waxaa xasilay oo way xasileen, qalbigoodii baa degay. wadahaba khawfuhum cabsidoodiina way tagtay. wa farixuu wayna farxeen. aad bay rasuulku ugu farxeen hadalkiisa. nacam baqiya rasuuluullah rasuulku wuxuu baaqi ku ahaa uu sii joogay sala allahu calayh wasalam bimakkata 19 yowman 19 maalmood 19 maalmood ayuu sii joogay oo yujadidu uu ku cusboonaysiinayay macaalima alislaami islaamka calaamaadkiisa. calaamadaha islaamka ayuu ku calaamadaynayuu ku cusbaynaysiinayay. wayutahiruhaa 19 maalmood uu ku nadiifinayey kana tahiraya min aahaari aljaahiliya jaahiliga raadkiisa. wixii aana qabiil ahaa, wixii qabiyaalaysi ahaa, wixii jaahilnimo lagu dhaqmaayey oo dhanna uu ka tahirayay. waqad jaddada wuxuu cusbaynaysiiyey ansaabi alxarami xaramka xuduudihiisa. xaramka xuduudyaalkii uu lahaana waa cusboonaysiiyey. wanaadaa waxaa naadiyey munaadiihi kii asaga u dhawaaqayey. iclaanka nebiga qofka ogeysiinahaya dadkaa qayliyey. man kaana yu'minu qofkii rumaysan billaahi ilaahay iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhiro falaa yadac yuusan uga tegin fii beytihi gurigiisa sanaman. ilaan qof kasta sanad baa guriga u yiilay, asnaan baa la caabudi jiray, ilaahyo ay gacantooda ku qorteen qaara alwaaxda alwaaxa ka fiican ka samaysan jiray ilaahu caabudi lahaa. catarba catarka ka fiican u marin jiray, xariirba xariirta ka qurux badanna dul saari jiray. xaaladdaa markay ahayd buu rasuulku naadi u diray dhawaaqa oo yidhaahda man kaana yu'minu billaahi qofka ilaahay rumaysan iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhira falaa yadac yuusan uga tegin fii beytihi gurigiisa sanan ilaa kasarahu inuu jebiyo ma ahani hadduu dumiyo. hadmu cuza iyo wasuwaac iyo wamanaat 3 sanad ee cuza iyo suwaac iyo manaat dumintoodii. wali25 25 oo min ramadaan ay marayso. bacaa wuxuu diray rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam khaalid bn اlwaliid ayaa wuxuu u diray oo fii 30 faarisan fardafuulayaal ah wata. 30 ciidan oo farisiin ah ayuu u diray ilaa nakhla meesha lagu magacaabo.
liyahduma suu u soo dumiye alcuzaa sanadkii cuzo ahaa iyo wahaykalahaa dhismihiisaba haykalkii loo sameeyey la dul saaray iyo asagaba inuu markaa isla soo dumiyo. fatawajaha waa aaday khaalidna ilayhaa sanadkii cuzaa xaggiisa wahadamahaa waana soo dumiyey. wa kaanad waxay ahayd akbara asnaamihim asnaamtooda kan ugu weyn, sanadkii ugu weynaa oo ay caabudi jireen ayaa kaa ahaa. uma intaa kadib arsala wuu diray camr ibn alcaas fii ramadaan nafsihi, isla ramadaan naftigeeda ayuu diray lihadmi suwaac si loo soo dumiyo. wahuwa suwaac wuxuu ahaa acdamu sanam midka u weyn oo lihudayl ay lahaayeen qabiilka hudayl. sanadkii ugu weynaa ay caabudi jireen suwaac baa la ohan jiray. kaana haykaluhu haykalkiisa birhaat wuxuu ahaa quraabati mid u dhow 150 kilomitir shamaala sharqi waqooyi bari fii makkata dhanka maka. dhanka maguu quraab uga ahaa mid uga dhow 150 kilomitir oo waqooyi bari ah. fadahaba ilayhi waa uu aaday camar ibni caasna sanadkii suwaaca xaggiisa. wahadamahu waa soo dumiyey. wa aslama waxaa islaamay saadanahu kii dhaqaalaynayay. ilan sanad kasta mid waardiyeeye oo nadiifiyo qashinka ka xaaqa ayuu markaa lahaa, kiina uu islaamay. ilan markii la duminayo saasuu u eegaayey. limaa ra'aa wuxuu arkay oo min cajazihi tabardaradiisa ah. maxaan isuga muujinaa buu ninkaan la jijibinaa dadkan iska celin karin, anisu wax iigu tari karaa. waa uu fakaray. ilaahay baa la doonay khayr iyo wanaage. ninkii saadanaha ahaa ee dhaqaalaynayey waardiyeynayeyna waa uu islaamay. limaa ra'aa min cajazihi tabardarada sanadka markuu arkay. uma intaa kadib bacata rasuulku wuxuu diray sayid ibni zayd ninka lagu magacaabo alashhali radia allaahu canhu fii ramadaana nafsaaslar bishaa ramadaan. ilaa manaad buu u diray sanadkii manaad fii 20 faarisan 20 geesiyaal buu wataa, 20 nin oo farisiin ahoo fardo wataa. wa kaanad waxay ahayd bilmushallal meesha la yidhaahdo. mushallal meesha la yidhaahdo sanadkaasi ku sugnaa waa cinda qudayd. wahiya sanam buu ahaa oo kalbin iyo wa khusaaca iyo wa ghasaan iyo walaws iyo walkhas intaba ay lahaayeen. sanadkaa lagu magacaabo sanadka ee loo diray sayid ibnu zayd alashali lagu magacaabo. sanadkaa asaga ee loo diray waxaa caabudi jiray uu ilaah u ahaa qabiilada reer kalbin, khusaaca, ghasaan, aws iyo khasraj. fa ataahaa wuu u tegey. wa kasarahaa wuuna jebiyey. wahadama wuxuu dumiyey haykalahaa dhismihiisii. haykalka waa marka la dhiso meesha sanadka la istaajin lahaa, marka dhismaha hoos loogu dhiso kaasuu haykalkiisii qaabkuu ku taagnaa ah. bacfu khaalid diritaankiisa ilaa bani judayma loo diray, reer bani judayma qabiilkii ahaa. uma intaa kadib bacata wuu diray rasuulka khaalid ibni waliid ayuu diray fii shahri shawaal bishii soonfureed ilaa bani khudaym ilaa bani judayma reer bani judaymuu u diray liyadcuwahum suu ugu yeero ila alislaami islaamnimada. khaalidow bax ee reer bani judayma u tag. markaad u tagtana islaamnimada iyo diinka iyo tawxiidka ugu wac. taa waxay tilmaamaysaa waxa ugu horeeya ee qofka loogu talagalay inuu ilaahay subxaana wa tacaala lagu xiro waaye. waa in rabbigiisa la baraa. qof aan ilaahayba aqoonin maxay ka jilbaabataa oo xijaab loo xiraa? qof aanba ilaahay aqoon suu u tukadaa? marka ugu yeer islaamnimada iyo inay hoggaansamaan oy amarka alla qaataan, diintuna ay markaa ku socdaan. wa macahu khaalid waxaa la socotaa 350 rajulan 350 nin oo min almuhaajiriina iyo waalansaari iyo wa bani sulaym intaba isugu jirtaa. reer bani sulaym kowde, ansaar iyo muhaajiriin 350 nin ayaa markaa la socotaa. falamaa dacaahu markuu ugu yeeray ila alislaami islaamnimada, islaamkii buu u sharxay, diintii buu u sheegay. waxay damceen inay islaamaan. qaaluu waxay dhaheen
saba'naa hadalkaasay ku hadleen. saba'iga ama saabica sidiisaba waa qofka inta diinta ka baxa diin kale markaa gala. waasaabi'iina sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala. saba'naa iilanay macnaheedu waa saa. waxay rabaan waxay ula jeedaan waan islaamnay. carabiyadii bay sixi waayeen. hadalkaasay u fahmeen. jahlinimaa ku xambaaray. saba'naa bay dhaheen iilanay. faqatalahum wuu laayay khaalidna. wa asarahum wuu soo qafaashay qaarkood. uma intaa kadib amara wuxuu amray khaalid yowman maalin an yaqtula inuu dilo kulla rajulin nin kasta asiiroo qofka qafaalkiisa ah. raggu waxay ula jeedaan aslamnaa bay rabeen. saba'naa ayaguna horay u maqli jireenoo raggaasay ka maqli jireen. oo saba'naa iyo saaba'naa iyo wixii noocaasoo kale ah tiibay marka u fahmeenba. waxay u fahmeen waa mtaqaanaa waa islaamnay oo kale. khaalidna wuxuu le waaba iisheegaya saasayd yeeleen miya ruf qoortuu ka wada gooyey. waa laayey wa asarahum waana qafaashay. uma intaa kadib amara wuxuu amray yowman maalin an yaqtula inuu dilo kulla rajulin nin kasta. an yaqtula inuu dilo kulla rajul nin kasta asiirahu qofka qafaalkiisa ah ee gacanta markaa ugu jira. faabaa ibnu camar baa diiday. faabaa ibnu cumar baa diiday iyo asxaabtiisa. waayo khaalid wuu cusub yahay. mar dhow ayuuna islaamku soo galay. amaa cabdullaahi ibnu cumar wuxuu ka mid yahay saxaabadii hore iyo asxaabtiisa la filka ahaa. daalika arrintaa way diideen. ma dilayni bay dhaheen. walammaa markii rajacuu ay soo laabteenna dakaruu waxay u sheegeen daalika arrintaa lilnabiyi sal allahu calayh wasalam. rasuulkay arrintii uga sheekeeyeenoo xaaladdii isay wax u dhaceen ayaa looga sheekeeyey. rasuulkay markaa uga sheekeeyeen sala allahu calayhi wasalam. farafaca kor buu u qaaday rasuulkana yadayhi gacmihiisa. wa qaala wuxuu yidhi maratayni 2 jeer allaahumma ilaahayow abara'u ilayka waxaan kaaga beri noqonayaa mimaa sanaca khaalidun khaalid wuxuu sameeyey. 2 jeer buu rasuulku ku soo celiyey. ilaahayow beri baan ka ahay. khaalid waxa uu sameeyey kuma raacsani. bacdamaa khaalid uu haliyey yahay seef alla uu yahay qaladkan uu galay loogu madax salaaxi maayo. wadankan uu galay ma loogu madax salaaxaayo. beri baanna ka ahay buu yidhi ilaahayow. farafaca yadayhi labadiisa gacmood ayuu kor u taagay. wa qaala maratayn 2 jeer ayuu yidhi allaahumma ilaahayow abara'u ilayka waxaan kaaga beri noqonayaa xaggaaga mimaa sanaca khaalidun khaalid wuxuu sameeyey. uma intaa ka bacdi bacaa wuxuu diray rasuulka caliyan cali radia allaahu canhu bimaalin xooluu la diray. fawaddaa diye ayuuna ka bixiyey qatalaahum kuwii laga laayay. rasuulka suu wax u cabiraya fiiriya, suu wax u islaaxinaya fiiriya. si ay dacwadu u noqoto mid horukaca ayaa raggiisa ee khaalid sida khaladkaa uu u laayey diyuu ka wada dhiibay dhammaantood. fawadda waa ka diyeeyey qatalaahum kuwoodii la dilay. wa acطaa wuxuu siiyey badala maa daaca wax allaala wixii ka dayacmoo ka halaabay oo min amaali maalkoodii ahaa. wixii xoolahaa oo ka halaabay oo ka dayacmayna rasuulku waa siiyey sal allahu calayh wasalam. cali dheh haddii kale wafadala waxaa soo haray fadlun ziyaadaa soo haray. markuu diyadii ka wada dhiibay qofkii xoolay ka dayacmeenna uu siiyey ama dadkiisii uu siiyey yaa wax kala soo haray. fatarakahu lomay buuga tegay. qaatuu dhahay intaana radia allaahu canhu. wa kaana waxaa ahaa bayna khaalid iyo wa cabdiraxmaan ibni cawf kalaamun hadal isdhaafsi iyo wa sharun xumaan liajli maa facalahu khaalid wuxuu khaalid sameeyey darteed. waa lays afgaargaaray. waa lays afgaargaarayoo khaalid ibni waliid wuxuu sameeyey cabdiraxmaan ibni cawf baa ku ceebeeyey. kalaam iyo waxyaabaa marka dhexdooda maray wixii khaalid uu sameeyey darteed. waxoogaa af isdhaaf baa markaa gaaray. falammaa markii rajacuu ay laabteen oo waahbaruu ay u sheegeen rasuula allahi sala allahu calayh wasalam bidaalika arrintaa qaala rasuulku wuxuu yidhi mahlan joog yaa khaalid
dac canka ii dhaaf asxaabii asxaabtayda ii dhaaf fawallaahi baan ku dhaartay low haddii kaana uu kuu ahaada uxud jabal uxud wax la mid ah dahaban oo dahab ah uma anfaqtow aad ku bixiso fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ma adragta ma haleeli kartid khadwata rajul oo min asxaabii walaa rawxatahu ka lahaad amase caraawid wax la mid ah uu caraaway ama uu galab socday ama uu subax socday ma gaari kartid mahlan ka joog qaswat xunayn baanu geli doonaa balse meesha aynoo joogto wabilaahi towfiiq wallahu subxaanaه wa tacaala aclam.